Bismillahirrahmanirrahiim kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warbixinadii ciyaaraha aanu kaga hadli jirnay gaar ahaan wararka kooxda Barcelona ee aanu kugu soo gudbin jirnay page-ka Barca 252 aynu ku bilownay Lautaro Martinez ayaa hal tilaabo u jira ku biirista naadiga Barcelona maxaa ka soo kordhay heshiiska Lautaro Martinez maxaase ka harsan wargeyska La Gazzetta dello Sport ayaa maanta qoray bogiisa horna ku daabacay in kooxda Inter Milan laacibkeeda Lautaro Martinez ay isku raaceen go'aan farxad gelinaya Barcelona oo ah inay ogolaatay in laacibkeeda uu xagaagan ka tagi karo waxa uu wargeysku ka soo baxay dalka Talyaaniga ku waramaya in Martinez ka codsaday kooxdiisa inay u fasaxaan ku biirista Barcelona maadaama uu dalab muhiim ah ka helay inkastoo uu ballan qaaday inuu dadaalkiisa oo dhan kooxda gelin doono haddii suuragali weydo qorshaha uu ugu wareegayo dhanka kooxda ka ciyaarta horyaalka La Liga Barcelona Inter iyo Lautaro Martinez ayaa dhammaantood fahansan inuu heshiiskan hirgelayo inkastoo aysan jirin weli heshiis rasmi ah oo ay labada kooxood isku raaceen balse Nerazzurri ayaa aqbashay in weeraryahankeeda iyadu fasaxdo dhawaan ayay ahayd markii majalada Spain ka soo baxday ee Sport ay baahisay in weeraryahanka reer Argentina uu heshiis 5 sano ah misna uu ku qaadanayo 12 milyan oo euro sanadkii uu la gaaray kooxda Barcelona si kastaba ahaatee in Barcelona ay ku guuleysato saxiixa Lautaro Martinez waxaa kaga harsan kaliya inay kala heshiiso kooxda Talyaaniga ka dhisan labada kooxood ayaa hadda ka fikiraya ku soo laabashada ciyaaraha horyaalada iyadoo Barca toddobaadka dambe ay la ballansan tahay kooxda Real Mallorca halka horyaalka Serie A loo bilaabi doono marka waa kooxda macallin kuwii ka siteen ay ciyaarto kulankeeda ugu horeeyay horyaalka La Liga marka dib loo amba qaado ayayna ciyaarahaas dib u furmi doonaan oo la filayaa in kooxda Barcelona iyaduna ay kulamadeeda dib ugu soo laabato sidoo kale Barcelona waxyaabaha ay suuqa kale iibsiga ka doonayso ciyaaryahanada dhankooda aad ay u badan yihiin sidoo kale waxa ay maanka ku haysaa in Paris oo 150 milyan dun dhigtay ciyaaryahanka reer Brazil ee Neymar Jr iyana ay dib ugu soo celiso gegada Camp Nou xilli Neymar uu si aad u xiiseynayo ka garab ciyaaridda Lionel Messi oo isagu 2015 uu si aad guule muhiim ah ula gaaray markaas oo koobka saddexleyda loo yaqaano uu ku guuleystay Neymar da Silva Jr waanaga inta barnaamijkeeni tan intaan ku kulmi doono barnaamijkeena xiga aan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo